weli waxayse soo taraya dhawaaqa iyo qayladhaanta ka soo yeedhaysa dadkii ku caydhoobay abaarihii ba'naa ee dalka soo maray. dadkani oo ku soo barakacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco ayaa bannaanbax cabasho ah ka hor dhigay xafiiska Badhasaabka ee gobolka Togdheer, waxaanay maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ku eedeeyeen inay dhag jalaq u siin waayeen qayladhaantooda, iyagoo sheegay in tacadiyada ay ku hayaan maamulka gobolka Togdheer ay dhibana uga yihiin qaranka Somaliland. waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. waxa weeyaan nabadgelyo darro anagu ma wadno, waxaan wadana waa baahidaana wadana waxa weeyaan madaxdii gobolku naga hoos qaadi weydey waxa weeyaan aanu maanta haynaa oonu la cabanayna iyo cidaan ula cabanayna waxa weeyaan waa waxa weeyaan madaxtooyada, waa madaxweynaha waxa weeyaan jamhuuriyadda Somaliland, waa golaha guurtida, waxa weeyaan baarlamaanka. waxaanu leenahay si degdeg madaxdayada waxa weeyaan dalka aanu hoos joognay aanu helanahay had iyo jeer nabadgelyada iyo wax walba aanu kala shaqaynayna imaan daradaba waxaanu ka codsanaynaa in si degdeg ah arrimaha iyaga loo soo farageliyo. waxaanu doonaynaa haddii la xugmayo wixii naloo keenay gobolka naloo keenay kama hoos qaadin haddii la xugmaayay dee madaxdayada iyo haddii la xugmaayay Badhasaabkayga haddii la xugmaayay dee annaga haddii la xugmaayay dee annaga أنا شغال نور الراشة هذا الحكومة شغال تاي هذا ينفع تاي بدأ نور الراشة هذا الحكومة ما حدا وحنا ذكرت هنا لقى قبته من قبل كان Badhasaabka gobolka iyo ku xigeenkiisa iyo ninkan maayirka saddexdan nin waanu ka cabanaynaa haddii aanu nahay qaxoontiga yaala airportka dabadiisa ee xoolo ka baxeen ay baahidu soo xareysay anna laga qabto wax alaaliya wixii maamulka iyo madaxda sare ee Somaliland ay noogu dhiibeen araanka waxaanu ka haynaa ma jiro maatadeedu way maranaysaa. 3 biloodna waanu deganay halka dawladda gobolka Burco maayirka iyo Badhasaabka iyo gudoomiye ku xigeenka midna nooguma iman meesha maamulka dhamaantii ma arag dadkaas oo barakacayaal ah xooloodii ka dhamaadeen xoolo dhaqataa ah kuwaasoo aan lahayn hoy ay galaan iyo waxay wadaan iyo waxay cunaan midna iyo caafimaad darro intuba ay hayso gobolkuna uu ka dhaga qarsaday. waxaanu leenahay madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo guurtida iyo golaha baarlamaanka waxa naga qabteen Badhasaabka iyo waxaanu ka cabanaynaa dawladda baarlamaanka gobolka Badhasaabka waxa weeye dawladdii halka dadka airport ka yaalin 6 bilood baanu naalay 6 bilood waxa laala wax noo keenay ma jiraan dadku halkaas ku maranaya caafimaad darro shuban baa imika ka dilaacay wax laala wax nolo markaan u nimaadno Badhasaabka wuxuu oranaya in yar suuga dabatana uu baxsanayaaba marka waxaanu leenahay madaxweynaha Badhasaabka xukuumadda ka talisa ee gobolka Burco degdeg ha nooga qabto. Axmed Saleebaan Carab Axmed Kaafi telefishinka caalamiga ee Bulsho TV Burco.